waxaa la hadlayaa dhalinyartan ka bislaaday dowladda Soomaaliya oo hadda u diyaar xataa inay hub qaataan kuwa ugu wanaagsanna oranaya mudaharada aan qabanno balse waxaan xasuusinayaa ficil qorshe la'aan inuu yahay adoo gidaarka madaxa la dhacaya weligaa adigoo xamaasad ku hayso iyo cadho go'aan lama gaaro laskamana dhaqaaqo waayo waxa haddii kale kugu dhacaysa dii aabayaashin iyo adeeradeen ku dhacay inay dowladdii siyaad bare kasoo horjeedsadaan iyagoo san fikirinna dhahaan waan ridaynaa oo bilaa qorshe iyo bilaa istaraatiijiga markiiba u gacan galeen Itoobiyaanka dhulkiyo meeshii ay qabsadeenna iyagoo sidaa ugu faraxsan inay dowladda rideen ogeen inay ku hoos jiraan baqacanta Itoobiya waana maanta shanta Soomaali kala qaybisa iyadana wada taliso dhamaantoodba marka laga ilaaliyo go'aankan iyo xamaasadan iyo carada bilaa qorshaha waxaana muhiim haddii aad ogaatiin intaad san talaabo kala qaadinba oo dowladdan kaliya ay haysatay iska dudumin inaad horta adigu qalbiga isku xaadin Soomaali oo kala shakisan oo isku ogoleen waxba oo nin walba xitaa qarax maanta arkayo soo qorayo xitaa hadduu madaxweyne kala joogi lahaa ama kan joogi lahaa wax kala dhici lahaaba qadarka alle la bedelayo inuu qofka ku xiranta meesha joogo hase yeeshee odayaashii Soomaaliyaashii nagu horeeyay dhan markay dowladda burburiyeen ayagoo wada gacmo jir dowladdii ku riday maanta kala gacmo ayay isku haystaan oo dhulkana ku kala qeybiyay adigana aad ka qeyb tahay adigoo qabiil ahaan ku taageeraya ama adigoo stop ku sameyn kara qalbiga isku xaadha hortay ninku dhamaantiinba sidaad u kala garatay inuusan qof walba oo Soomaaliya ama af Soomaali ku hadlaya ama iska dhigaya inuusan ahayn Soomaali uu cadow iyo munaafiqnimo iyo shaydaanimo kula soo dhex galayo oo dhibaatana kula rabo marka si fudud inaad qalbi jilci ay ku dhigto qof walba waa iska Soomaali adiga ayaan dara kugu tahay marka intaas oo talaabo soo qaadatay oo adigoo isku qalbi xaadhan baad sameynaysaa shaqo joojin adigoo hub ridin rasaasna ridin baad dowladda u tagaysaa askarta iyo ciidanka iyo shaqaalaha caruurtiina ku dhimanaya maalin walba meesha oo mushaarka lagala soo daahayo ayuu un baa furihii iyo shaqadii dharkii wax walba meesha saaraya ilaa baabuurtii oranayana dowladdan waxaan kala dhaqonnay aaminaadii aan ku qabnayba totally systemka dhan baan kala noqonaynaba waayo markaa waxaad isku qabtaa kalsooni inuusan kuwa iniga mid ah inaysan dowladda ku sii harin markay ku balamaan waan ka joogaynaa inaysan hadhow xitaa dowladda marka dhahan qaarkood mushaarkaan ii kordhinaynaa ama qabiil ahaan soo noqda inay u adkaystaan dhahaan go'aan baan la galnay yaxdiyo islaamnimo dad kale oo idinka waa naga soo horjeedsanaa sidan ayaan shaqo joojin ku sameynaa cid inala hadli kartaana ma jirto this is strategic markaad isku haleynaysid dadka ku ag jooga this is isku dhiibidda ilaahay markaad ku dhaqaaqaysid waxaana hubaal ah inaysan dowlad ku shaqayn kareen bilaa jirkeeda hoose haddii maskaxda xitaa ay dhimatay waxay u baahan tahay Soomaa gacmo iyo lugo iyo calool ay ku shaqayso caloosha lugaha iyo gacmaha waa adiga iyo murqahaas marka intaa weedo waxay bilaawaysaa inay adiga ku jiqjiqdo ku dhibaateeso oo hubaal ah inaad adigna cadhootid adigoo midaysan aad suuqa ka erisidba dowladda ka saartid waddanka ka saartid oo sidaas waddankii u qabsay markaas baad bilaawaysaa inaad dib aad dowladdaada u dhisatid oo dad nadiifa oo ilaahay ka baqaya oo qalbigiina isku xaaran yihiin oo kala garanaysiin nin walba reerku ka dhashay oo ciduu yahayba ayaad isku aaminaad aad isugu labisnaysiin dhakhtarkii booliiskii ninkii maxkamadda haya ninka airportka haya ninka takada jooga ninka xadka dhulka jooga ninka militariga qabanaya nin walba isagoo isku kalsoon ayuu ahdi iyo balan ay ka wada bixi karaan ku wada kalsoon yihiin ku dhaqmi karaan laakiin se dad bilaa ahdi iyo bilaa balan bilaa sharciya bilaa qorshe inay shaydaan isku balamiyo hadhow sidaan hadda aan isku haysanoba ayuun baan isku sii qabsan doonaa laakiin se markaa taabtaa aad samaysiin waxa hubaal ah inay Soomaaliya 20 sano gudaheeda sidaa isku bedelayso laga yaabaa idinka oo weli xitaa gaarin 80 jir ama 60 jir inaad aragtiin caruurtiina iyo kuwa sii dhaleen inay ku raaxaysan karaan Soomaaliya oo nabada oo la oranayo Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qanisan adduunka waa wadamada ugu sharci wanaagsan waa wadamada ugu diin wanaagsan waa wadamada ugu akhlaaq wanaagsan waa wadamada ugu dadka duntooda wanaagsan yihiin marka ayaasan lagu degdegin mudarahaad dowlad dudumis way waxaan yarada haysatay waxay u baahan tahay xitaa maamulays iyo control